بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bulshada sharafta badan ee ku xiran channelka kan Elvis Family channelka Amirada Qalbiga. ku soo dhawaada fariintan. haddii rabbigay ogolaado waxaan rabaa inaan tacliiqiyo ama aan falanqeeyo ama falcelin yar oo kooban aan ka bixiyo arrin muddo xataa aan arkay muddo dheer laakiin hadda ay noqotay arrin ka sii dar ah ka dar oo dibi dhal. waxaan uga warramayaa hooyo Soomaaliyeed oo bulsho badani saa u dulmarayso sabab deyn bay ka qabtaa maxoolay ka dhacday miyay cayd maya nolosha ay ku jirto bas darteed way u galiyaa u fiirso mushkiladu intee la egtaa fiiri marka adin nolol aad leedahay adigu aad samaysaad ku dhex jirtid ay dadii kugu culaadinaya oo maxaa sameyn lahaa hadaan nolol samaysan maxaa sameyn lahaa ma intaan isqaawiyo baciid hoosteeda geli lahaa masa carari lahaa maxaa sameyn lahaa adiga maxaan kaa codsaday maxaan dhib oo kugu haya yani nolol aad samaysatay baa dad xastayaan oo dad baa ka qufacaya ka xajiimoonayaba dadkiiba marka ku caayayo ku saaran. hooyadan waa mid dad badan yaqaanaan oo markii hore TikTok ku soo caan baxday kadibna YouTube samaysatay. waxa ay ku soo gashaa Easter kurlibaax mase korlibaax kurku waa macnaha waa luquntii madaxa horaan maleynay mase waa kurlibaax iyadoo korkeeda libaaxa macnaha mase waa kur oo kurka libaaxa inta kale maxay noqon karaan ma bisadba Allahu a'lam iska gaftan way marka say doontaba ha noqotee hooyadaas dad badan baa saaran. sababtu meeshay ka timid waa maxay? sababtu waxa weeye waxay guursatay dhaheen wiilka yar oo taama dambi baa oo nabi maxamed soo ma guursan haweeney laba jibaar miisayo 40 iyo dhowr sano jirta soo 20 iyo dhowr sano jira soo ma guursan rubama laga yaabaa farqigaas nabiga iyo Khadiija u dhaxeeyay inay labadan u dhaxay oo ninkay sheegayaan waxa laga yaabaa jinkiisu inuu yar yahay laakiin asagaaba sheegay inuu hore u soo guursaday xataa ay reer soo dhaqay ma aqaanadku waxa ka khaldan. ilaahay intaad ka cabsataan dib uga dega haweeneydaasi hooyadaas Soomaaliyeed waa hooyo Soomaaliyeed waa haweeney Soomaaliyeed iyadoo caruur waxaan u maleynayaa qaxootiga inay Kenya Dadaab inay degan tahay marka TikTok ay inta badan marka community-da fiirisay in badan muuqaalada kamid ah oo isku jiraan oo ay wax jilayaan dadka inta badan waxaan moodaa negative inay yihiin. waxaad moodaysaa marka dad qaar in loo abuuray inay dadka kale wax ka sheegaan in Ilaahay buu abuuray sidaas waxa maya saas ma in dadka kale xasdaan dadka kale wax ka sheegaan dadka kale daba galaan dadka kale kaana ma qofkii in loo abuuray moodaysaa wada saa lagu ma abuurin walaal ما ذكر كم مشخوش وحلقوا أبوري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحلقوا أبوري وإن ضمت أقوست إلهنا عابد ما أمضان كربتها ما هو يدان كربتها هكوينات هي أفرتن ترى هكوينات صوصوكم ما كان أحسن مجلين أيضا صوصوكم مجلين وحي سوتشي تو يعتبيه وحوي إن هذا الكود وصن يعني دامج وين وجارسين ويجا اسكتنا ويجا كفر حسين أسقى كفاني سيدايدا أوي أنا سيدايدا حول ولا قوة إلا بالله أدبر أولياء بمركان أركض ضد نلاش محا أسميست يا أخي ما سكرات أهاتي وما أركتان مياه وضياش يجور سنة يكبرها يريك وحاليا بنا هي أمدا مسكحة كل ركبان عليا بنا وضي مركو جور سده كبر يروح إليه إنك وين بكون دقيقة أيه markay haweeney guursato wiilka yarna xilay wiilay dhalay kartay guursatayo dhuuxa iyo lafaha inay siibtay rabta aafa ku dishay qofku laagma weyd bilay wal fiirsa laana aqligeena waxa ku jira aqliga dukuuriyada anaha lab baalibinta leh dhadig waxba ma aan dhadig dhulka isku dajiyeen yeesay ismuujin fikrada aqliyad ah baan ku koornay taasna way tufatas daadiya marka hooyadaas markii dambe TikTok waxay samaysatay YouTube oo waxa uu qoran Easter kurlibaax hadda waa hooyo ma aragtay inay ilmo sugayso uurleeda ka dareemisaano ilaahay hooyooyinka u dhib yareeyo dhamaantood aad arkaysaa
maalin dhowto kuway ka sheeganaysa caaye rag baa ka mid ah u soo hajib maxay u guursatay sabab waxa igu darnaa markii haween qaar ay dhaheen waxaan joognaa Yurub waxaan joognaa America haye waree islaanta qaxootiga kula joogto maxaa ku falaysaa annaga ku dhoofin wax walba ku qabanayna ka soo tag annaga na soo raac wallahi waxaan aaminsanahay kuwa daacadnimo arinta uma dhigin inay isku diraan hadhow magaca uga tagtay rabta kas iyo xaasidnimo arinta u sameynaysa mid daacad u yeelaysa nooc waa yarta mid daacadnimada sheeganaysana maxaa soo galiyay adduunka dhamma dhamaaday marka qaarna ninku markuu guursado bayba niyada ku furaan oo cayrsadaan taas sida oo ku yahay aan rabaa inuu ii noqdo aqliyadaas aan lagu rakibo marka xaasidnimo isaa u yeelayaan ee daacadnimo ma aha inay reerkan burburiyaan bay rabaan xamaalatul xatab way wareejiyaal way cudurka waxa ku dhacay wareejiye saa bay u wareegaysaa fikrad xun iyo xan iyo xumaan oo la wareegaya iyo isku dir laba kasto isku farxsan way dhaxgaliyaan wax bay keenayaan reehebel way ayadu asagana waa reehebel daadaas way ayadu asagana waa daadaas maadagay gargaar ka dalbadeen iska dhaaf ilaahayna ka cabsada nabadgeliyo hooyadaas waxay rabto ha gursid xor asaga qofka noloshiisa shakhsiyad ee gaarka u leh rabbigiin ka cabsada dadka noloshooda ku mashquulaysan iska dhaaf dantiini baad sheegteen oo dunyadiini baad sheegteen oo diintiini baad sheegteen marka dad kale xoolahood iyo noloshooda ku mashquulaysan hooyadaasna waxaan leeyahay hooy walaal habar yar eedo darajo kasta qaado muuqaalada in badan oo kamid ah qof hawooyo ah qof haweeney ah qof sharaf leh kuma fiicna TikTok ah yani bedel xisaab xir ku samee adoo hooya rubama laga yaabo gabadhaadu in la guursan doonaba inaad mid hadda soo baxayso laba jir ah oo shaydaan qucquceynayo sideeda kala noqotid arin fiican ma marka qaar kood caruurtaadii baa soo gelinaysaa oo boodboodiyo wada nikini ma xumaan caruurtaada la soo gashay laakiin caruurtaada waxaad u tahay muraayad tusaalaad u tahay waxa sidan ka wanaagsan oo ka fiican aakhirada iyo adduunkooda anfacaya kaaga tayday taladaasna waa siinaya laakiin si kasto ahaataba qofka in noloshiisaas wax laga sheego la galo وهري هم دمر يركوا هاي رك ورك شجعني ويلكير بيجورستاي ويلكير بيكفريستاي ويلكير بيخلداي ويلكير بيدعداي waxay ku dareen haweeney kale laha way ka dhacdo la hawla wala quwwata illa billah ari iyo geel iyo xoolo la kala dhici jiray maalba arki jirnay dadka ma la kala dhaca aqliyada bulshadu intay ku nooshahay rafaadka iyo dagaalada iyo qaxootiga iyo wax la'aanta iyo stresska kama baxayaan warqof walba dantiisa iyo dowgiisa ku mashquulo dhexda marka la iskugu yimaado nolol qabow ah hooyadaas istarkur libaax ka leexda libaaxya idan jiireen aniga saasa idan leeyahay waxaanan ogahay dhinac walba bulshada maanta nolosheedan ogahay wax badan ka fahansan waxba kama dheefaysan oo aan cuqdad iyo ciil iyo xasadnimo ahayn xasadnimada dhaafa war dadku waxba ku deynmayaan xitaa hadaad qaawan tahay qaawanaanshaha iskugu xasdayaan haddaad gaajo tahay gaajinimadaasi kugu xastaya haddaad buuraha dhalooda fuusho halka ku noolaatay halkaasi kugu xastaya oo qofka mawaali yahay bay leeyihiin maxalka geey hadalka dadka ma joogsanayo laakiin dantiina aad ku raacdo waxa la yiraahdaa dadku in raalli ka noqdaan waa yool iyo ujeeda aan la wada gaari karin habarteeda ka taa dadku waxa ka sheegayaan waa ku caayeen ilaahay baa caayaan wax ka sheegay rasuushiisa tibiis fa kayfa adoo dad marka raalli gelinta dadku inay raalli ka noqdaan oo kugu qancaan oo ku saxabatumaan waa ujeeda aan la gaari karin laakiin ilaahay ina raalli gelisid waa ujeeda aan laga tagi karin marka waxaan la gaari karin iskaga tag waxaan laga tagi karin oo aan la hurayn samee oo ah raalli ahaanshaha ilaahay fariintaas halka ka diraya waana rajaynayaa inay gaarto ilaahayna dhamaanteen nagu anfaco wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.